زود كان لا ملان إهل كيوان قرن واي 8 عياله أكسر يدي هذا كان سيدي تمكوا هذا محارته كأنه صوتورته كان سيدي تمكوا هذا تاني صوتورته ما أنتي وحن أصعد حرونتا علاجك دار التقوى أو لجو علاجي دتك قبح حنون هذا روحي جاه حرونتا waxay ku taala degmada hodan ee gobolka Banaadir waxayna fadhi u tahay oo halkaas ka howlgala Sheekh Cali Mukulli inta badan waxa taga dad badan oo xanuunadaas qaba halkaas oo lagu daweeyo inkastoo dadka qaarkiis ay arintaasi u arkaan inaysan sax ahayn oo siyaabo kala duwan oo Quraanka la iskugu daweeyo ay jirto sheekha ayaan rabaa inaan la kulmo markii ugu horeysay waana maalintii koobaad aan xarun sidaan aan tagayo dhowrkii sano ee ugu dambeeyay dalkeena hooyo ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa laga furay xarumo dhowr ah oo lagu daweynayo xanuunada ruuxiga ah sida sixirka jinka iyo isha waxaana booqda kumanaan dadweyne ah xarumahaasi oo tirada ugu badan ay yihiin dumar Quraanka Kariimka waxa uu daawo u yahay cudur kasta oo aadanaha ku dhaca waxa ay culimadu ku kala aragti duwan yihiin sida la iskugu daweynayo Sheekh Mukulli waa maamulaha xarunta Daarul Taqwa isaga iyo culimada kale ee xarumaha cilaajiga waxa ay wajahayaan eedamo dhowr ah balse isagu waxa uu ku doodayaa inay kalaamka alle ku daweeyaan dad ay ka soo caalwaayeen dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka waxa kale oo doodiisa daba taal in shacbiga Soomaaliyeed ay kaalin muhiim ah ugu jiraan bacdama iyaga koor xanuunada ruuxiga ah lala kaashan jiray wadaad kitaab gaablow ah dadka waxay ku daweysmayaan waa kitaabka Ilaahay dib ugu noqdaan kitaabka Ilaahay ee saaraan ee akhristaan ma garanaysaa ay ku kalsoonaadaan ba Ilaahay Quraankaas ku daweynaya biidmilaahi baari sida aragnay ma garanaysaa xaqiiqana tahay dad ma garanaysaa la tacaali waaya dhaqaatiirta ka daaleen Ilaahay ma garanaysaa caafimaad ku siiyay Quraanka Ilaahay caafimaad ku siiyay culimo uu ka mid yahay muftiga caanka ah ee Sheekh Shibili ayaa dhowr mar dhaliil u jeediyay mashaayikhdan dadka cilaajiya waxa ayna u cuskadeen eedaymahooda inay Quraanka si qaldan u aqriyaan iyo in ay gacmo togaaleeyaan haweenka ajnabiga ka ah balse Sheekh Mukulli iyo dadka uu quraamiyaba waxa ay sheegayaan in natiijadeeda oo ficil arkeen kalaamka alle oo la isku daweeyo wax badan baan iska jira oo culimada ay dhaliilayaan oo waa jiraan anaga dumarka insha Allah biidmilaahi baari gacanta lama galno jirkooda ma taabanno bal on bas insha Allah wax jirkooda ku jira inuu Ilaahay ka soo saar ayaan ku dadaalnaa ku duceynaa habeenii maalin waxaan u taaganahay dumarkaas ku caafimaad lahaayeen dhaqashada guriga reerkii waa dhaqan laayihiin ilmihii waa qabsan laayihiin shaqadii waa qabsan laadahay problemka dhibaatada soo kale ayaa jira qaar baa ma kanaysaa sida arkayseen kala dhashiyo qarsaaqo kale dhashi ka soo daadanaysa markii 2 bilood gaarama ilmihii soo tuuraysa qaar baa ninka guriga ka soo galaba ma kanaysaa ka hor keenaysa annagu jirkooda ma taabanno bal isadaayay amalkan wax Ilaahay aan ugu dhawaanayno ayuu yahay aniga xanuunsanahay maade xanuunkeyga waxa ahaay guriga dhan oo la nacsiiyay wadaadkeyga oo aan aad isku ahayn ilmaha yarka gabar kamid oo aan inaan dhalay in kale aan kala ogeyn ana ahaa imaada meeshaan alxamdulillah shayadiina ay dhex qayliso oo dumar ah marka ma sha Allah alxamdulillah dawaa fiicnaaday xaruntan Daaru Taqwa Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli qeer Allah siiyo waa mahadsan yahay wax badan oo naga shaafiyay Soomaalida oo ah dad haysta diinta Islaamka isla markaana la caadooyin dhaqan oo soo jireen ah ayaa waayihii hore isku daweyn jiray Quraanka iyo daawo dhaqameed Maxamuud Soofi 5 TV Muqdisho